madaxweyne Erdogan iyo dawladdiisu dabcan waxayna kaga guuleysteen dagaalkii gobolka Karabakh ee u dhaxeeyay Armenia iyo Azerbaijan oo uu Turkigu taageeray Azerbaijan halka Armenia ay taageerayso dawladda Russia. iminka Turkigu gobolkii uu kaga adkaaday Russia wuxuu ka dhisanayaa saldhig military. tani waa guul weyn oo dhinaca diblomaasiyadda iyo ammaanka ee ay gaartay dawladda Turkiga oo hogaaminaya Erdogan. dhinaca kaleete waa dhabarjab weyn oo soo gaaray quwadeena iyo dawladnimadeena dalka Russia. sidaas waxa yiri diblomaasi sare oo u dhashay dawladda Russia. afayeenka madaxtooyada dalka Russia oo ka farcelinaya hadalhaynta ku aadan in Turkigu uu dhisanayo saldhig military oo ka sameysanayo dalka Azerbaijan ayaa yiri Turkigu waxa uu qaadi doonaa tilaabo walba oo ku difaacayo amnigiisa iyo xasiloonidiisa haddii Turkigu isku dayo in Azerbaijan uu ka dhiso saldhig military. Turkigu waxa uu sheegay dhankiisa inuusan gorgortan ka galeen wax walba oo qaabeynaya sare u qaadayaan quwadda difaac iyo saameynta uu ku leeyahay wadamada caalamka gaar ahaan kuwa muslimiinta ee dalkiisu xiriirka la leeyahay. intayna si wanaagsan ugu gudagelin faahfaahinta arrintani marka hore page-kan rukumo leeg saaro oo folowde siina share garee warbixinadeena oo la wadaaga asxaabtaada. mahadsanid. aynu ka horeyno xiisad cusub oo dhinaca diblomaasiyadda iyo ammaanka salka ku haysa ayaa markaan si wanaagsan uga soo ifbaxday dalalka Turkiga iyo Russia. waxaa la isku hayaa arrin diblomaasiyaddana sal weyn ku haysa dhinaca ammaankana si weyn u saameynaysa dalka Russia. madaxweyne Erdogan-ka Turkigu waxa uu ballaarinayaa siyaasaddiisa ku dhisan arrimaha dabadda iskaashiga walaalnimo ee kala dhaxeeya wadamada muslimiinta gaar ahaan kuwa xiriirka wanaagsan Turkiga la leh. Russia waxay ogaatay in Turkigu uu diyaariyay saldhig military oo ka sameysanayo dalka Azerbaijan. dabcan sameynta arrintani waxa ay noqonaysaa mid saameyn weyn ku leh xukuumadda Moscow. waxay u tahay guuldarro weyn oo dhabarka saaran doona madaxweyne Putin maadaama horay dalka Azerbaijan iyo Armenia dagaal ugu dhaxmaray iyadoo Russia ay taageerayso Armenia halka Turkiguna uu taageerayo Azerbaijan. balse dagaalkaasi waxa ku jabtay xukuumadda Moscow. waxa ka raacday fadeexad dhinaca amniga iyo siyaasadda maadaama Turkiga iyo Russia marka la isbarbar dhigo uu Russia awood iyo dhinaca militariga uu ku badan yahay. balse dagaalkii ka dhacay gobolka Karabakh waxa uu ahaa mid guuldarro weyn u horseeday dhinaca dawladda Russia. hadda dhawaan Turkigu waxa uu saameyntiisa xoojiyay uu ku leeyahay dalka Azerbaijan. maalmo ka hor madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday magaalada Shusha ee gobolka Karabakh halkaas oo markii hore fariisimo u ahayd Armenia iyo ciidamo ka socda dawladda Russia. madaxweyne Erdogan oo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Azerbaijan waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyadoo wadbaahintuna ay falanqaysay arrin ku saabsan in Turkigu uu darihiisa si ballaarinayo uu ka leeyahay dalka Azerbaijan. warar la helay ayaa tibaaxay in Turkigu uu diyaarsaday saldhig military oo ka sameysanayo dalka Azerbaijan. tani waa ballaarinta quwadda dalka Turkiga oo sii kordhaysa. waxa uu doonayaa in saameyntiisa military uu ku ballaariyo wadamada gobolka kuwa muslimiinta iyo dal walba oo xiriir la leeyahay si uu kaga guuleysto kuwa cadawga ku ah oo ay ka mid tahay Mareykanka, Russia iyo dalalka kale ee xifaartanku kala dhaxeeya sida UK. warbaahinta dalka Russia waxa ay wareysay madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa dalka Azerbaijan ay isla gaareen heshiis ku saabsan in Turkigu uu saldhig military ka sameysto dalka Azerbaijan isla markaasna Turkigu uu taageeray ciidamada dalka Azerbaijan oo laga taageerayo dhinaca tababarada iyo qalabaynta. arrintan ujeedka ugu weyn ee ka dambaysa waxa ay tahay in Turkigu uu helo saameyn military oo ku leeyahay caalamka oo dhan. hadda warbaahinta gudaha dalka Russia waxay u muuqataa inay ku soo baraarugtay xilli Azerbaijan iyo Turkigu ay kala tuurteen qorshaha ku saabsan saldhigga military ayna ku heshiiyeen sida ay u wajahayaan. markii uu soo baxday arrinta ku saabsan saldhigga military kadib afayeenka madaxtooyada dalka Russia ayaa sheegay asagoo ka falcelinaya saldhigga military ee Turkigu ka sameysanayo Azerbaijan
waxa uu yidhi haddii turkigu saldhig militari ka samaysta Azerbaijan, Russia waxay qaadi doontaa tillaabo lagama maarmaan u ah in amnigeeda iyo danaheeda ay ka fakarto ayna qaado wax walba oo isku badbaadinayso. tani waxay ka dhigan tahay in turkigu uu si weyn dhabarka uga jabiyay Russiana ay iminka soo qaadatay hadallo u muuqda inay yihiin calaacal iyo kuwo uurku taalo leh, taas oo ay ku muujinayso inay si weyn kaga carootay tillaabada turkigu uu uga dhisanayo saldhigga militari dalka Azerbaijan kadib guuldaradii Russia ka raacday dagaalkii u dhaxeeyay Armenia iyo Azerbaijan sanad ka hor. Russia ayaa horay ugu eedeysay turkigu inuu saameyntiisa ku aadan dalka Azerbaijan uu kaga goleeyahay dana siyaasadeed iyo mid amni oo asaga u gaara. xukuumadda Moscow sidoo kale waxay madaxweyne Erdogan ku eedeysay inuu abaabulayo falal ka soo horjeeda wada noolaanshaha shacabka, taasoo ay ula jeedo dagaal dhinaca diimaha oo uu ku wajahayo dalka Armenia asagoo garab siinaya Azerbaijan. kadib markii afayeenka xukuumadda Russia u hadlay uu arrintan ka falceliyay, waxaa dhankiisa falanqayn ku sameeyay sargaal sare oo diblomaasiya kana tirsan dowladda dalka Russia oo iminka dabadjoog ku ah waddanka UK. waxa uu sheegay in haddii Recep Tayyip Erdogan uu iminka qorsheeyay saldhig militari oo Azerbaijan ah ay ka dhigan tahay in turkigu uu siyaasad ahaan iyo difaac ahaanba uu kaga guulaystay dalka Russia. waxa uu yidhi ninkii naga soo raray gobolka Karabakh siyaasadii Russia ee Armeniana ka dhigay waxaan jirin, iminka hadduu qorsheynayo halkii uu naga soo kiciyay ee gobolka Karabakh inuu saldhig militari ka dhisto, waxay ka dhigan tahay inaynu guuldareysano shacab ahaan iyo dowlad ahaanba. tan waxay muujisay sidoo kale iminka in labada dal ay qarka isku saaran yihiin inay dhex maraan xiisado waaweyn oo dhanka diblomaasiyadda iyo gacanka hadalka. turkiga waxaa ka go'an inuu laba jibaaro xiriirka uu la leeyahay wadamada yaryarka ee aan quwadoodu sarreyn si uu ugu jabiyo kuwa kale ee quwadoodu sarreyso. waxaa sidoo kale sii kordhaya turkigu saameynta uu ku leeyahay wadamada Soomaaliya, Liibiya, Syria, Ciraaq iyo dalal kale oo ku yaala caalamka, asagoo doonaya in marka ka dambayso quwadiisa si fudud uu ku gaarsiiyo wadamada yaryar ee u baahan in laga taakuleeyo dhinaca militariga. Erdogan ayaa dhawaan dhankiisa u sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden arrin si weyn uga naxisay, taas oo ah in turkigu uusan ka suuli doonin dardargelintiisa iyo soo iibsashadiisa gantaalada waxgumaada, taas oo Mareykanka u muujisay in turkigu uu isku diyaarinayo quwad la mid ah midda uu Mareykanku leeyahay, taas oo sababi karta in xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo turkiga uu mar kale sii xumaado. madaxweyne Biden wuxuu isku dayay in turkiga uu ka dhaadhacsiiyo in la dejiyo xaaladda dalka turkiga ee ku saabsan quwadeynta iyo tabaca xubka cusub, isla markaasna laga wada shaqeeyo dhinaca horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha si turkiga looga mashquuliyo dhisitaanka awoodiisa ciidan iyo midda tiknoolajiyadda ku salaysan ee dhinaca ciidamada, taas oo turkigu asagu farsamaysanayo. iminka quwadaha waaweyn oo ay ka mid tahay Mareykanka, Russia, Shiinaha iyo UK intuba waxay ogyihiin qartarta Erdogan, waxa ayna aaminsan yihiin in Erdogan lagu jabi karo oo kaliya in dalalka oo dhan ay u midoobaan, balse Russia iyo Mareykanku marraba islama qoob qaadi karaan marka loo eego siyaasadaha iyo danaha isdiidan ee ay dunida ka leeyihiin. taasi waa fursad, ayuu yiri sargaal sare oo diblomaasiya oo u dhashay waddanka Turkiga, isla markaasna ka mid ah kooxda sida weyn u taageerta madaxweyne Erdogan. hadda madaxweyne Erdogan waxa uu muuqdaa nin guulo waaweyn ka keenay diblomaasiyadda iyo fiditaanka dhinaca difaaca ee dalkiisu uu ku sii fidayo dalalka kale ee ay u badan yihiin muslimiinta. arrintani waxa ay timid asagoo turkigu gudihiisa uu ku guuleystay inuu isqaabeeyo oo isdhiso horumar ahaan iyo ciidan ahaan, waxayna tani niyadda ka jabi doontaa dowlado badan oo horay cadow ugu ahaa turkiga, dhowr jeer oo horeetana ku soo rogay cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga. balse Erdogan oo kaashanaya shacabkiisu waxaa la sheegay inuu arrintaas oo dhan jabiyay, isla markaasna ay kuusteen
oo iminka ay ka samreen inay hor istaagaan reer galbeedku mar kasta iyo saacad walba waxaynu eegi doonaa xogaha cusub iyo wararka cusub ee soo gaaray ee halkan ku xiran oo la soco oo la jaanqaad sheer garaa wararkeena markay ku soo gaaraan leeg saaro oo follow si aad saaxiib noola noqoto mahadsanid